يشاي سيديبا ليس قادقي كنا وطني xafladan oo ahayd mid lagu taageerayo musharax madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Bashiir Xaaji Cali Jamaal ayaa lagu qabtay Hotel Rais ee magaalada Buuhoodle xafladan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay lebeynta bulshada sida ismada cuqaasha waxgaradka hooyooyinka iyo dhalinyarada kuwaas oo si wada jir u taageeray musharax Bashiir waxaana ugu horeyn halkan ka hadlay kana warbixiyay taariikhda musharaxa Xasan Jaamac Bismillahir Rahmaanir Rahiim برنامج كسابسن تاريخ نولدك يا ويا رجنمدا مشرح مدحوينه بشير حاج علي جمال مشرحا مدحوينه بشير حاج علي جمال ومتكمده مشرحين تو وقتيان شاعيي in ay u tartamayaan shaqada madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya iyadoo uu ku tala jiro inuu noqdo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Bashiir Xaaji Cali Jamaal wuxuu noqonayaa musharaxii ugu horeeyay ee abid isu soo taaga shaqada madaxweynenimo ee dowladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolada istiraatiijiga ah ee Togdheer Sool Sanaag iyo Dollo Bashiir Xaaji Cali wuxuu u taagan yahay heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed xasilinta nabadgelyada Bismillahir Rahmaanir Rahiim aadi aad baad u mahadsantahay iyada oo ragga meesha jooga aan u weynahay haddii weynaanta iyo madaxnimada iyo anigoo doonaya madaxweyne aad saaka ugu xiisa qaba hadalka la ii hormariyay Ilaahay baan ugu mahadnaqaya mid kale labaad Jamaal dalkiisa hooyo yimi dalka hooye oo ku soo dhaw dalkaaga ku soo dhaw ciidaada hooyo timi madaxweyne looga baahan yahay wax qabasho looga baahan yahay kii loogu horeeyay baa tahay anigoo saaka meel fog jooga meel fog yaalay waxaad ka soo qayb galaysaa rays madaxweynena laga dooranaya xoog aan igu jirin ma soo dhaqaaqay ilaahayna waxaan ka baryayaa kii lagu indifaaca inuu noqdo ka baryaynaa inuu ku soo baxo وقابك صدحات مدحوينه كوبا نين استحقامه وهودا كينا ومقعنا وانك ugu horeeyay sida darteed walaalayaal waxaan leeyahay codsanayna aad iyo aad codsanayna arinta inaynu ku wada dadaalo oo aynu halkan kaga bixin arinta nin urka ku hayeen inuu soconayo noqono taana idkaan ka codsanayna anigu waxaan farxay farxadii iigu weyneed laba jeer baan farxay halkan aan iska taagana waaba saaka markii iigu horsay weeyay in doorayadoo la iska taagay waayo waxa aan isu taagay ama qoladan ka yeelay hadda markii la kacay waan fadhiyeeyo xanuun baa hayo qoladan halkan way ka waraysaa waxaan isu taagay faraxa aan farxay dartii laba jeer waxaan ku farxay marka hore Jamaal waan aqaan firna waan u aqaan wuu istaahilaa ilaahayna waxaan ka baryayaa sidii wadaadadu ugu duceeyeen sida khayrku ku jira Allah waafajiyo xafladda shaacinta Bashiir Xaaji Cali cilmi oo u sharaxan madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee federaalka ah waxaan leenahay musharax madaxweyne soo dhawow waxaan leenahay hambalyo waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi furan waxaan leenahay ku guulayso xilka ballaadhan ee Soomaaliyeed
allaha kugu guuleeyo waxaan leenahay bashiir xaaji cali cilmi umuu soo doonan Soomaaliya kursi uma soo doonan dhaqaalana uma soo doonan wuxuu ugu soo gurmaday aqoontiisa iyo maskaxdiisa inuu uga faa'iideeyo waa musharax madaxweyne bashiir xaaji cali jamaal oo runtii ummadda Soomaaliyeed in fara badan ay garanayso dibad iyo gudaba oo halkan CV-giisa laga akhriyay oo waxqabadkiisa iyo hufnaantiisa iyo kartidiisa aqooneed ay in badan Soomaalidu ay taqaano waxaan leenahay musharax bashiir xaaji cali jamaal ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka uu si soo taagay allaha ku guuleeyo mudane jamaal xaaji cali cilmi iidle shaacintiisa uu u tartamayo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya shaacintii waxaan leenahay dadka soo agaasimay ee soo shaaciyay ee u hawshooday waa mahadsan yihiin hadalku bacdal shaacin waxaan u malaynayaa salkiisu waa duco ducadiina cuqaashii hore yaa tiri jamaal oo isu soo taagay madaxweyne Soomaaliyeed in ilaahay ku guuleeyo ilaahay baynu uga baryaynaa waana nin han weyn oo han meel han sare ka tartamay oo haddee badankeeda leeyahay waxayna dilay siyaasiyiin halkan aan shangala dhaafine meel weyn buu ka tartamay ilaahay waxaynu uga baqaynaa ilaahay waxaynu uga baryanaa inuu ilaahay ku guuleeyo marka waxaan soo dhawaynayaa oo mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaynayaa jamaal xaaji cali cilmi iidle madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya 2021 musharaxa ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay ku guuleeyo marka waxaan leeyahay jamaal de halkaas un baynu taageerayna wuxuu ku yimi sidii markii hore laga dhawaajiyay gurmad Soomaaliyeed buu ku yimi gurmadka Soomaaliyeedna awal baynagu shacabkeenu waynu ahayn laakiin siyaasiyiinteennii baynu ka weynaado labadan maamul hareeraha dhaafi weyday haddii ay dhaafeen maanta ay gurmadka qaranka galeen aad iyo aad baynu taageersanahay anigu golokafuulka ma aqaano oo taqaaniin waxaan ka hadlay muddan ka soo fikiraa laakiin de waxaan kolleyba odhan lahaa jamaal qarankii jilbaha loo dhigay iyo jeegad iyo lowga jabhadii iyo qabiilkii la tagay way jiraan weli jinka saamileydaan maqlay iyo jiilka daba yaaca jamaal oo kala suuliya ee jamac ku taageera jamaalowina xaaji janaadi lagaga yeedh nabiga jaahisana ku banee jaliil jirada laga cararo jimsigaga lagama helo adeer hakadeed min weliga kursiga ku raag adeer hakadeed min weliga kursiga ku raag wadna kabiye allow narta ka koryeel kabtaad u dhaqaaqdo malaayiga ha kula la noqo ibraahim cabdiqaadir jabaan Som News TV buu hoodle